kusoo dhawo muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa su'aal soo laalaabato ah laptoobyada la isticmaalo haddii aan rabo inaan ku barto casharada online-ka ah ee kuwa hurbad bixiya ama kuwa kale ama aan rabo inaan laptop si gaar u soo iibsado shirkadee ugu fiican marka HP baan soo iibsadaa dadna weydiiyaan dad waxayna weydiiyaan Lenovo miyaan soo iibsadaa dadna waxayna weydiiyaan MSI Microsoft Apple MacBook Asus Acer Toshiba Dell Razer waxaasoo dhan laptop lagama eego horta haddii aad isticmaalayso shirkadda tufaaxa dhinaca laga qaniina MacBook-geeda $1,000 jooga kama hadlayno balse shirkadaha kale aan ka hadlaynaa shirkadaha sida HP Lenovo MSI Asus iyo waxaas lama eego haddaad soo iibsanayso mid second hand marka hore waxaad iska hubisaa generationka uu yahay sidee loo eegaa CPU-ga meel kamid ah taskbarka right-kii lagu sii waxaad tagtaa task manager kadib waxaa jira meel la yidhahdo performance haddii halkaan kaa xiran tahay halkaa ku dhufo performancegiisa ku dhufo performancegiisa markaad tagto waxaad arkaysaa CPU generationka uu yahay fiiri CPU taabo kadib waxaad arkaysaa generationka uu yahay hadday ku qoran tahay Core i5 hadda weeye kanu 12 gen ku qoran ama 12 generation 8th gen 8 oo laga wado 18 ama 17 soo baxay haddii ay ku qoran tahay meeshan 10 gen 2020 11 gen 21 hadda wuxuu marayaa kani 12 gen oo 2022 dabayaaqadeedii soo baxay waa 12 generation waxa kale oo laga eega halka ee number 12 ka bilaawdo Core i5 12450 macnaheedu waxa waaye waa computer soo baxay 2022 generationkiisu yahay 12 oo Core i5 Core i7 waa ka fiicnaa karaa soo baxay 2015 Core i5 soo baxay 2022 memoryga ka eg memorygiisu computerka inta soo iibsanaysa ugu yaraan inuu yahay 8GB ama 16 haddii aad Windows 11 ku isticmaalayso iyo virtualization iyo web design iyo graphics haddii aad isticmaalayso 16GB halkan ka dhigo iyo video editing hard drive-kiisa inay tahay fiican SSD waliba NVMe inay tahay hard drive-kiisa inay ku qoran tahay halka iska hubi SSD inay ku qoran tahay waliba NVMe qaarkood maaha balse waa SSD oo SATA interface wadata M.2 inay tahay ka fiican hard drive-kiisu inay tahay fiican 512 han kuba tusaya wuxuu ku tusaya 477 maxay la capacity-ga qayba laga reebay si loogu isticmaalo system files 512 in halkaas ku qoran tahay hadaa u fiirso shirkadda sameeyda muhiim maahan ee waxa muhiim SSD ma tahay waxa kale oo laga eegaa laptopka second hand-ka ee aad soo iibsanayso hadduu yahay second hand waxaad soo degsataa software-radan labada oo haddii aad rabto waxaad soo degsataa CPU-Z Google haddaa ku qorto tiraado download CPU-Z website-ka laga soo dejiyaa lagu geynayaa fiiri Z aad dhigi kartaa internet kadib waxaad soo degsataa ka ugu horeeya waxaad tiraa download ku dhufo kadib caadiba kugu soo degayaa automatically waa kana shirkadana samaysa hoos soco downloadkeedii waa kan kadib waxaad ku dhufataa download asoo English computer ku shubo waxaad kaloo la soo degtaa software la yiraahdo Disk Crystal Info ayadana waxay ku jirtaa Google-ka haddii aad qorato waxa la yiraahdaa Crystal haddaad qorto Crystal Disk Info haddaad ku qorto Google waxa ku soo saaraya website-kan downloadkeeda ku dhufo ayadana la soo deg okay labada software yarka waa utilities ka anfacaya in information ku tusaan ku saabsan computerkaaga fiiri labadan aad u fiican yihiin marka waxaad samayn kartaa midaan la soo deg iyo mid kale waa kana marka inta xirto labadooda la soo deg sidaan computerka ugu shuba iska fududahay click weeye CPU-Z software CPU-Z wuxuu ku siinayaa xog aad iyo aad muhiim u ah generation hadda aan ka soo hadlayno ah Intel Core i5 12 generation oo ku tuso wuxuu kaloo ku tusi karaa in ta core oo leeyahay CPU-gaaga oo halkaan ku tusaya wuxuu ku leeyahay CPU-gaaga wuxuu leeyahay 4 cores 12 threads oo ah wax aad iyo aad u fiican way runtii in CPU-gaaga xaradiisa oo badan yahay threadkiisu SSD haddaa tagto ama memory wuxuu ku tusayaa DDR3 DDR4 DDR5 waxa ay tahay tan waa DDR5 waa latest 8GB inay ku jirto okay fiiri marka labadaas ina ogaato waa muhiim CPU-zadana ku sheegaya haddii aad ka weyso xogta qaar ma ku sheegayo task manager-ka Crystal Disk Info software asagana yes waxa uu ku sheegaya caafimaadka hard drive-kaaga hard drive waxa jira aad iyo aad loo soo isticmaalay caafimaadkooduna oo safiicnayn waa tiraaday hard drive-ka aan ku soo baranay task manager performance oo noogu soo celiya Macron la yiraahdo 512 SSD oo ah waliba NVMe Express non volatile memory module express way 100% inay tahay badana health statuskeeda iska fiiri waa good 99% way aad u fiican tahay hard drive-kan dhaawac ma qabto lama isticmaalin wax badan looma geysan waa computer cusub almost ay la mid tahay waa 99% hard drive-ka hadduu soo qoro bad hadduu halkan soo qoro ka fogaaw hard drive-kaas haddaysan ahayn SSD oo NVMe ah ka fogaaw computerka aad soo iibsanayso hard drive-kiisu waa inay caafimaad qabtaa waxa kaloo ka sii muhiimsan labadaas computerka soo iibsanayso sakanaka baterigiisana iska hubiso baterigiisa loo hubiyaa halkaan tagaysa waxa ku qoraysaa command prompt ama CMD aad u soo gaabinay internet marka uu ku soo saaro zoom in samee adoo qabanaya control waxa loo yaqaan control plus halkaan waxa ku qoraysaa power waxa qoraysaa configuration ama CFG u soo gaabi forward/battery report aad qoraysaa marka report isi aad leedahay
waxaad qoraysaa hee iska hubi power cfg battery report batteriga computerkayga leeyahay xogtiisa itus weliba nool yahay wuxuu ku yidhi battery reportan kuu sameeyey oo halkaana kuugu keediyo ku leeyahay c users hurbad battery report adiga wuxuu ku dhihi doonaa darafsii tag users tag magacaaga soo saari doonaa aniga hadda muxuu yidhi computerka waxaad kula jirtaa username la yidhaahdo hurbad marka waxaan tagayaa this bc waxaan tagayaa darafc waxaan tagayaa users asagaaba yiriba soo maaha kadib waxaan tagayaa hurbad oo folderka aan ku jiro kadib waxaan tagayaa battery report ee meesha u hooseysa ayaa waxa ka soo baxaya hee battery report waa kana marka battery reportiga uu sameeyay oo ah xog ku saabsan batterigayga wuxuu ii sheegaya horta computerka shirkadda samaysay Lenovo waxaan isticmaalayaa A3EFR waxa la dhaho BIOS numberkiisa xilliga la sameeyay update aan ku sameeyay ilaana platformka aan isticmaalayo waa mobile oo ka wada laptop ardada iPlus ta dhigata haddaad fahamteen waxa laga wada mobile devices waxa ka wada laptops si fiican haye installed battery marka batteriga computerkan wato waa maxay magaciisu waa ka magaca wato L2 hebel manufacturer sameeyay waxa la yiraahdaa shirkadaas weeye oo Sun Water la yiraahdaa shirkadaas weeye shirkadu muhiim ah sida numberkiisa iyo waxaad arkaysaa design capacity-ga haddii aad aragto 47 iyo 30 oo laga wado megawatt hours oo inta saacadood ku hay karo batteriga originalkiisii waxa weeye waa 4.7 hours oo ah wuxuu ku hay karaa hee wuxuu ku hay karaa waa 4 saacadood iyo adiga iska dhehbar 4 saacadood bar ku hay karaa oo megawatt hours marka kunkii megawatt hour ba wuxuu u qaybsamaa hal saac u qaybsamaa marka u qaybinaysaa 4000 Soomaha marka waxa leedahay waa 4 saacadood iyo bar ayuu batterigan loo naqshaday inuu ihaayo marka hadda full capacity hadda marka laga dhigana waxa uu noqonayaa fiiri lambarkaas hadda soo baxaya design capacity-giisu waxay ahayd 4700 hadda mar daama la isticmaalo 2 sano ama 1 sano batterigan oo computerka la isticmaalayay wuxuu soo saarayaa in ay dhimatay adiga wax ku dhow 1500 oo kale 45480 47 lagu soo saaray Soomahan maxaa ka maqan marka 1500 ba iska dhaca ka maqan oo megawatt hours hal saac iyo bar oo isdhimay marka hadda meeshii uu ahay lahaay 4 saacadood iyo bar waxa laga yaabaa inuu ihaayo hadda inuu ihaayo 3 saacadood iyo bar iyo wixii lamid ah balse hadda waxa ku qoran halka 4.5 inuu ihaanayo haddii lambarka halkan ku qoran iyo lambarka halkan ku qoran marka aad kala jarto ay half noqdaan tusaale kale 4700 Soomahan haddii halka ay ku qornaa lahayd 2700 batterigaas 2 saacadood hatta ku haymay ka fogaa weey computerkan batterigiisu waa u dhintay waxaad fiirisaa charge cycle inta jeer full charge la charge gareey waa kana 23 mar ayaa full charge laga dhigay batterigan sidii loo soo gaday computerkan haddii meeshan ay gaarto 200 ka carar ayadana cycle-ka waa lagu badiyay batteriga full charge in laga dhiga ma fiicna marka lambarkan tusaale haddaan kala jarno 47 iyo lambarka kuu soo baxay tusaale kale hadduu noo soo baxday 23 oo kale markaa kala jarto haddii ay kuu soo baxdo lambar ka yar 3 hadduu kuu soo baxo oo haddeertaan saa ujeedo waxaa soo baxaya haddii la kala jaro waxaa soo baxaysa halkan haddaa ka jarto meeqaa soo baxe waxaa soo baxe 2 haddaa ka jartana waxaa soo baxe 24,000 ayuu hadda marayaa ka fogaaw 2 saacadood iyo 40 daqiiqo ku haynaya waa macnaheedu ka fogaaw batteriga haddii uu half noqday full capacity-giisa markii la fiiriyo iyo design capacity-giisa hadday kala bar go'day ka fogaaw haddii ay go'day 3 dhig meel okay way hadday go'day 3 dhig 2 meel waa ka fogaanay markaa okay saddexdaasi ayaa laga fiiriyaa computerka laptopka aad soo iibsanayso waa batterigiisa inta jeer la charge gareeyo xataa kuu sheegaya last 7 days iyo wuxuu ku siinaya history ku saabsan battery usage iyo inta uu jiro cimrigiisa ayuu ku tusaya waa kana battery usage history waxaad ka soo bilowdaa maalinkii computerkan lagu bilaabo isticmaal waa kana asagaba ku tusayaba waxa ku leeyahay computerka maalinkaasi baa lagu isticmaal saas la sameeyay saas waa ilaahay markiis ila soo libaax ama libaaxad battery report marka waxaad samaynaysaa battery report disk info iyo CPU Z inta ka fiiri iyo generationka uu yahay shirkadda uu yahay muhiim maahan HP Mia ma waxa weeye Lenovo ma waxa weeye MSI ma Acer ma Hebela waxaas oo dhan ay ku mashquulin batteriga generationka memoryga hard drive-ka ka fiiri hadday ku anfacaan saan kuu sheegayay ay yihiin kuwa caafimaad qaba generation fiican wata ugu yaraan generation 10 generation 8 generation 12 ugu yaraan haddaa heli karto xabadka kula carar ay qaado shirkadda uu yahay muhiim maahan waxa muhiima inuu yahay mid caafimaad qaba laptopku mahadsanid mudane ama marwo